Ma aaminaysaa maanta saabuunta gacanteyda aan ku haayo inaan aniga gacanteyda ku samaystay. Ilaahay ka soo hiil iskiilis ayaan uga mahadinayaa. Ka warama podcast-ii gilgilay baraha bulshada gaarayna 3 milyan ku dhawaad. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Walaalayga marna asxaabteyda qaaliga ku soo dhawaad YouTube channelka Zakiya Aadam. Waxaan mahad u sugnaatay Alle subxaanahu wa tacaala. Marka xigta waxaan u mahad celinayaa dhammaan asxaabta ku xiran YouTube channelka inta daawanaysa. Waxaa idin wadaa vlog idin kaga soo duubay maalin aan sameynaynay saabuun ama maalinkii ugu horeysay oo saabuun aan sameynay. Vlogan waxaa duubay hal bil ka hor. Hal bil kadib ayaan idin soo deynaa. Sababtu waxay tahay saabuunta markii la sameeyo hal bil kadib ayaa la isticmaali karaa. Marka waxaa rabay anigoo isticmaalay in aan vlog idinkugu soo daro saasa muuqaalkan vlogga dib idinkugu dhigay. Waxaan diyaarsanaynay alaabtii aan ka sameyn lahayn ama waxyaabihii aan ku sameyn lahayn iyo agabkii loogu talagalay in la iskaga difaaco marka saabuunta la sameynayo. Waa u jeedin kalaaskayga waliba laba qayb aan loo kala qaybiyay waa kuwa meeshaan ugu yaraatay. Iskuulkan aan dhigto horena waa idin la wadaagay waxaa la dhahaa Hill Skills wuxuu ku yaalaa Hodan bakaaraha afka hore ee suuqa qudaarta ku soo degto ama agagaarka saraha bangaariyada. Haddaba saa u jeedin waa qof walbo iyo saabuunta inuu asaga si gaar ah u sameeyo. Gloves la'aan lama sameyn karo, mask la'aan lama sameyn karo, okiyaalkaas la'aantiis lama sameyn karo. waa kanaahay walaashiin meeshaan ay ku soo cabiratay waxyaabihii looga baahnaa yaa hal gacan ah qof kale oo iduubay malan maahan qof walba asaga leeyahay isku mashquulsan. Marka saabuuntana ani ahaan been idin ma sheegay waa ka helay wallahi sababtoo ay nadiif ee ka dhigaysaa brightening way ku siinaysaa way ku ifinaysaa moisturizing way leedahay sababtoo waxa saliidaha lagu daray waxay ahayn saliido moisturizer leh ma fahanteen saliid qumbe iyo saliid zeytuun ku darnay oo ka sameynay waa markii ugu horeysay. laakiin hadda qaybo kale oo assignment aan loo soo diray nin walba waxa waaye asaga ragnimadiisa hala soo baxo ee noqotay. waa idin tusi doonaa mid hadda guriga ku sameeyay inkastoo dhowr nooc ina loo diray. markaana waan la duuduubayay page-ka TikTok si loo soo dhigo hawlaha ay u kala socdaan iyo waxyaabahaas. ka sheekay marka walaalayaal hooygan soo gaara kaliya lagu mana bartay xirfadan aniga hadda aan barto oo cosmetics bas lagu ma baranayo waxa lagu baranayaa harqaan tulista dunta gacanta dunta oo farshaxanka waxyaabaha farshaxanka laga sameeyo sida boorsooyinka iyo wixii la mid waxa kale oo lagu bartaa make upka ilaanka waxaan ku dhahay decorka waxyaabaha hadda soo ziyaadeen waxa kamid baarista tan walaashiin idina markeeda la duubayo farataagtaag ku jirto. Assalaamu calaykum magacaygu waa Zakiya Aadan waxaan kamid ahay ardayda dhigata Hill Skills kamid ahay ardayda dhigata cosmetics. markana waa kana saabuuntii soo sameeyay gabar kale oo abaayo sameysanayso agtiida joogtay iyadana waa duubtay meela la dhigayaa saabuunta ilaa ay ka adkaanayso saa hore idinkugu sheegan ilaa muddo bilaa la sugayaa ka hor mal isticmaali karo maadaama silikoonada isku egyihiin qof walba magaciisa ku qortay aniga waxa ku qortay Zakiya Aadan meesha laga rabay Zakiya YouTuber ku qortay shaqo saas oo jecesha ma jirta waa idin la kaftamayaa soo meel dhiga doona oo isku soo noqon doona guriga keenay bil markay taale kadib waa taas waxa idin labadaas xaba ka soo baxday labadaas xaba ka hartay waa kaas anoo isticmaalay mujidiin si u xumbeynayso before gacmihii waa idin tusay si u xumbeynaysan waa idin tusay ma aragtaan waxaan ku dhasi si aadan filanaynin ku nadiifinaysaa afterkan gacmihii waa kaas inkastoo qorax si fiican ihayso la fahmeenin laakiin waa fahmi kartiin tan waa mid hadda guriga anaa sameeyay macluumaadka markaa meesan ila joogin falaxid ayaan ka sameeyay mid kalena way ii dhiman tahay. vlog intaanu noogu egyahay waxa idin weydiinayaa podcast-gan ka sheekeeya hawada dadka dhanka qabsaday oo muddo hal isbuuc gudaheeda dadka dhan jahwareeriyay maxaa ka leedihiin qeyra idin rajeenaya. Assalaamu calaykum.